salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba oo dunida ka joogtaan kuna soo dhowaada war wixii dalkii iyo daafaha caalamkii naga soo gaaray ood ka daawataan Aligo Production. Aynu ku bilaabnay dalka Itoobiya. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya Dameqe Mekonnen ayaa sheegay go'aanka dowladda ee ku aadan inay ciidamadu gelin gobolka Tigray uu yahay mid lagu leeyahay in laga fikiro xal aan dagaal lahayn. Dameqe waxa uu sheegay dowladda Itoobiya inay kaalinteedii ka soo baxday oo xilka hadda la jiro fallaagada TPLF. Go'aanka dowladda ciidamadeeda ku amartay inay deegaanka Tigray gudaha u gelin oo si weyn looga soo dhaweeyay in laga faa'iideysto ay ku xiran tahay sida ay fallaagada u dhaqanto. wuxuuna carabku ku dhuftay go'aanada ay Washington ka qaadatay arrimaha Itoobiya inuu yahay mid lagu degdegay Itoobiyana ay aad uga xun tahay. Itoobiyana waxay qaramada midoobay ogeysiinaysaa ayuu yiri mowqifka ku aadan Itoobiya inay wax ka bedesho. Dagaalka Itoobiya ka socday in ka badan sanad waxa uu ahaa ayuu yiri mid shucuubta dalka mideeyay isla markaana Addis Ababa ay ku kasbatay saaxiibo badan oo caalami ah. Shalay ayay ahayd markii dowladda Itoobiya ay ka falcelisay hadalkii ka soo yeeray dowladda Mareykanka. Dowladda Itoobiya ayaa ku boorisay Mareykanka inuu xiriir diblomaasiyadeed oo toos ah la sameeyo halkii uu Kenya kala hadli lahaa arrimaha quseeya Itoobiya. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya Dina Mufti ayaa shir jaraa'id ku sheegay in xukuumadda Washington iyo wadamada kaleba ay soo dhaweynayaan inay wada shaqeyn dhinaca diblomaasiyadda la wadaagaan Itoobiya halkii ay arrimaha quseeya Itoobiya u qaadi lahaayeen meel saddexaad. waxaan ku casuumaynaa Mareykanka iyo dalalka kaleba inay si toos ah noola macaamilaan annaga ayuu yiri Mufti. Afhayeenka ayaa u muuqday in uu soo gudbinayay fariin ka turjumaysa sida ay Addis Ababa uga carootay tallaabada uu qaaday Mareykanka. wasaaradda arrimaha dibadda waxay ku guuleysatay inay ilaaliso madaxbannaanida Itoobiya iyadoo dusha u ridinaysa cadaadiska uga imaanaya golaha ammaanka ee qaramada midoobay isla markaana dhiirigelinaysa dhaqdhaqaaqa dalalka Afrika ayuu yiri. waxa uu sidoo kale sharaxaad ka bixiyay xaaladda Itoobiya oo dagaal sokeeye ku jirtay wax ka badan hal sano. hadalka ka soo baxay xukuumadda Addis Ababa ayaa daba socday wararka sheegayay in xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka uu madaxweynaha Kenya kala hadlay arrimaha ku saabsan Itoobiya iyo Soomaaliya. maxay ka wada hadleen Blinken iyo Kenyatta? Anthony Blinken ayaa madaxweyne Uhuru Kenyatta qadka telefoonka kula hadlay maalintii Talaadada isbuucani. inta uu socday wada sheekaysigooda Blinken waxa uu carabka ku adkeeyay in Mareykanku si buuxda u taageerayo dadaalada dhexdhexaadinta ah ee ay wadaan Uhuru Kenyatta iyo wakiilka gaarka ee Midowga Afrika u qaabilsan arrimaha Geeska Afrika Olusegun Obasanjo. bayaan uu soo saaray afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Ned Price ayuu ku sheegay in wadahadalka telefoonka iyo madaxweynaha iyo wasiirka gebi ahaantiisaba lagu gorfeeyay arrimaha amniga ee gobolka iyo danaha guud oo ay ku jiraan xaaladaha Itoobiya iyo Soomaaliya. dhanka Itoobiya waxay isku waafaqeen in si degdeg ah looga baahan yahay xabad joojin lagu hakiyo colaadda, fududeynta gargaarka bini'aadanimo, soo afjaridda tacadiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha iyo wada xaajood lagu xaliyo dagaalka ayuu yiri Price. dhanka Soomaaliya xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka waxa uu hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in hogaamiyayaasha dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ay si degdeg ah u soo gabagabeeyaan doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxtinimada iyo sidoo kale in laga dhigo mid xor ka ah ficillo sharci darro ah wax u dhimi kara saxnimada natiijada ayuu sii raaciyay. dowladda Soomaaliya dhankeeda ilaa iyo hadda wax war ah kama aysan soo saarin wada hadalka uu xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka la yeeshay madaxweynaha Kenya kaasoo Itoobiya ay ka soo jawaabtay. Itoobiya ayaa dhexda ugu jirta qalalaase ka dhashay ismariwaaga siyaasadeed oo u dhaxeeya dowladda uu hogaamiye Abiy Ahmed iyo xisbiga Tigray ee TPLF halka Soomaaliya ay ka taagan yihiin xiisado ka dhashay khilaafka siyaasadeed ee ka dhex aloosan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble iyadoo uu horay u sii jiray ismaandhaaf jiitamayay oo ay ku kala fogaayeen hogaamiyayaasha federaalka iyo maamul goboleedyada. Soomaaliya Ra'iisul Wasaare Roble oo kulan la qaatay madaxda Puntland iyo Jubbaland. Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa xalay magaalada Muqdisho kulan kula yeeshay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland Siciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Maxamed Islaam. waxayna madaxdu ka wada hadleen qabanqaabada shirka golaha wada tashiga qaran iyo dardargelinta doorashooyinka Soomaaliya
oo dhowaan ka furmaya magaalada muqdisho. Rooble waxa uu madaxda Puntland iyo Jubbaland ugu warbixiyey xaaladda dalka uu marayo iyo sidii doorashada loogu miro dhalin lahaa. Madaxda Galmudug, Puntland iyo Jubbaland ayaa ku sugan magaalada muqdisho halka la sugaya madaxweynayaasha Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa dhowaan ku baaqay inay madaxdu ka soo qayb galaan shirka golaha wadatashiga qaran oo lagu qabanayo magaalada muqdisho. Af-Talyaaniga oo sanado badan kadib laga dhageysanayo Radio Muqdisho. Telefishinka qaranka Soomaaliya ayaa bilaabay baahinta barnaamij ku baxaya afka Talyaaniga. Agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Cabdullaahi Xayir Ducaale oo barnaamijka daafuray ayaa sheegay laga bilaabo maanta inuu maalin walba uu barnaamijkaasi Talyaaniga uu ka bixi doono Radio Muqdisho. Cabdullaahi waxa uu sheegay barnaamijkani inuu ahaa mid ka bixi jiray Radio Muqdisho burburkii ka hor oo hadda dib loo soo celiyey. Barnaamijka Talyaaniga oo ku yimid heshiis afgarad ah oo ay kala saxiixdeen wasaaradda warfaafinta, dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo safaaradda Talyaaniga ee Soomaaliya. Barnaamijkan oo ay daadihin doonaan Cali Xuseen Yaasiin Koraado iyo Cabdulqaadir Cumar Maxmuud waxa uu idaacadda ka bixi doonaa 2:15 ilaa 3:15 duhurnimo xilliga Geeska Afrika. Radio Muqdisho oo la aasaasay 1951 9 sano ka hor xornimadii Soomaaliya waxaa ka bixi jiray afafka Talyaaniga, Sawaaxili, Carabi, Axmaari iyo afaf kale. Ramaphosa oo Desmond Tutu ku tilmaamay halyey Koonfur Afrika ka baxay. Madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa oo ka hadlay munaasabad looga baroordiiqayay Desmond, Ramaphosa ayaa sheegay Tutu inuu ahaa halyey qaran oo ka baxay qaranka cusub ee Koonfur Afrika. Munaasabadda baroordiiqiga Tutu oo lagu qabtay kaniisadda St George Cathedral waxaa ka qayb galay qoyska baadariga, saaxiibadii, siyaasiyiin iyo shakhsiyaad kale oo caan ah, iyadoo dadka sagootinta naxashka baadariga dadka ka qayb galay tiradooda la xadiday coronavirus awgii. Desmond Tutu oo ka mid ahaa shakhsiyaadkii u dhaqdhaqaaqayay dagaalkii midabta koorka lagu soo afjarayay wuxuu guddoomiye ka soo noqday guddigii xaqiiq raadinta uu madaxweyne Mandela uu magacaabay inuu soo baaro tacadiyadii ka dhacay dalka Koonfur Afrika intii ay dalkaasi ka talinaysay dowladdii midabta koorka ku dhisneed. Halgankii midabta koorka markii uu soo gabagaboobay, Desmond Tutu waxa uu wareegay kaniisadaha isagoo ahaa wadaad madhabta Katoolikada faafiya. Tutu 1984 waxaa la guddoonsiiyey abaalmarinta caalamiga ah nabadda oo loo yaqaan Nobel, wuxuuna ku geeriyooday 90 jir. Dagaalyahanada Falastiin oo gantaalo ku garaacay Israa'iil ayaa sheegtay inay maleeshiyaadka Falastiiniyiinta ah dhanka Gaza ka soo tuureen gantaalo. Gantaaladaasi aan waxyeelada geysanin oo ku qarxay badda Tel Aviv. Ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi. Ciidamada Israa'iilna waxa ay sheegeen nidaamka ka hortagga gantaalaha inay u isticmaaleen 2 gantaal ee dhanka Falastiin laga soo tuuray. Ka hor inta ay dhicin duqeynta ugu dambeysay, Israa'iil waxa ay sheegtay in mintidiinta Falastiiniyiinta ay soo rideen 5 gantaal ama hoobiyaal tan iyo markii heshiiskii xabad joojinta ee jilicsanaa uu dhaqan galay bishii May kadib markii uu dhacay dagaal 11 maalmood socday.